horta waxa marka horeysa fiican in la kala cadeeyo Puntland ma maamul goboleed ba mise dawladda federaalka waayo labadiiba ama gobol ha ahaato ama gobol iyo bar ha ahaato shalay adaa aqoonsaday adaa la fadhiistay miis adaa wax kula qaybsaday marka haddii aad maanta tiraahdid ana 5 gobol iyo waxaan ahay degmo 9 gobol waa maraya iyaduna waa maxay ahayd gobol iyo bar sidee baa khilaafkii u soo dhamaanaya haddii aynu iskala weynahay maamul goboleedadii kale kelmadan walaashay Zainab bixi ay riiskreysay waa waxyaalaha loo baahan yahay in fagaarahan oo kale la badiyo oo dhahaysa Puntland ma waxay ka weyn tahay dawlad goboleedyada kale ka duwan tahay haddii run loo sheego waa ka duwan tahay ma aha qab ayadu isku qabto sharciyan bay ugu duwan tahay laba qaybood dastuurka federaalka ah qodobkiisa 142 wuxuu leeyahay oo 2012 August Soomaaliya ay ku heshiisay dawladda goboleedyada jira waxay sii lahaan doonaan awoodahooda ay hadda leeyihiin ilaa dastuurka laga heshiinayo la dhameystirayo oo afti loo qaadayo macnaheedu waxa weeye dawlad goboleedka markaas jiray oo qodobkaas oo khuseeyo waa Puntland horta waa inaan ogaanaa horta waxa rabaa waxyaalaha misleadingka ka socdo meesha la rabo oo iska emotionalka marka rabo inuu wax la soo fikreeyo shanta dawlad gobol kale goboleed Galmudug Hirshabeelle South West iyo Jubbaland afarta kale waxa la sameeyay dastuurka ku meel gaarka markii la asixay ka bacdi qodobka ma quseeyo marka 142 afarta dawlad goboleed oo kale waxa gacanteeda ku sameysay dawladda dhexe oo federaalka ah oo kharash ku bixisay oo gud u bixisay oo dastuurka la sameysay oo la gedgedisay oo istaajisay oo meel dhigtay Jubbaland waa ka duwaneed xasan sheekh dawladdiisa xoogaa challenge baa jiray laakiin waqtigeeda la sameeyay Puntland dawladda federaalka ah ma ay sameyn yaa sameeyay marka waxaan rabnaa dadka reer Puntland horta inay fahmaan waxyaalaha misleadingka ah oo la rabo in issue-ga lagu bedelo oo la leeyahay Puntland waxay iska weyneynaysaa dawlad goboleedyada kale ma aha iska qob ee ku wato laakiin dastuurka oo marka hadda sheegay reer Puntland 98kii axdi bay sameysteen qodobay ku qorteen dawlad bay ku dhisteen maamul bay ku dhisteen awooday sameysteen dawladda federaalka ma jirin 14 sano ka hor ba awoodda iyo shuruucda Puntland la sameeyay 2009 baan malaynayaa baa waxa la sameeyay dastuurkii oo dhameystiran axdigu ka tagay dastuur guud oo noqday dastuurka federaalka ku meel gaarka ah 3 sano ka bacdi baa la sameeyay soo waxaan rabnaa horta conflictiga meesha ka socda inaan isla fahno markii saas la sameeyay dastuurka Puntland waxa ku yar anaga Soomaali baan nahay Soomaali baan raadinaynaa laakiin awoodaan leenahay dastuurka loo heshiin doono awoodahan haysano federaalka waa kala heshiinaynaa waa ku wareejinaynaa qaar markii dastuurka lagu qorayaa qaarna waa haysan doonaa labada dastuurba waxa lagu qori doonaa kan federaalka awoodda ay leedahay Puntland awoodda ay federaalka leedahay kan Puntland waa in revision la bedelaa oo laga saaraa awoodo gaar ah ay leedahay marka waxaan rabaa dadka inaysan confusion ku dhicin lagama hadlaayo dadka qab weyn dad madax oo federaalka waxa maqla dhahay didna kama awood badan kama qiimo badna laakiin waxa laga hadlayaa looyarada waa joogan hadda Siciido kale waa fadhida looyarada fadhiya legally binding waxa weeye dastuurka Puntland awoodaha uu siiyay waxa kaliya oo ku bedeli kartaa waa in processkii and systemkii lagu sameeyay dastuurka inay Puntland isku noqoto wax ka bedesho haddaan wax laga bedelin
وإن إسوافجيا مركا كم بنتلان يكم فذلكو أفر إيتون سنة كبعد الاسمي مركز واحد لوه شينا يا محي بنتلان لا هاي معناه لا هاي فيري سيوسعته إيجا قر أنا personal كي وحي إيمانه سا state is not equal to state إسكو ظروفه معها إسكو باهية معها لكن legal binding government structure كمركز لها هاللايو بنتلان أوله لا هاي سيد عبد الله الدين ما بدلي كره دستور كنتو أودي تمر ورجيو ما ده كره أودي بنتلان دستور كوكونا وعنكو رجيي دولة الدحاء دولة الدحاء أنا حس الشيخ ما أنت ما ده كره أوديه يشروع دي دولة الدحاء أسوي رجيي مركب وإلا بدي الدستور لقى ولا فريسة مركب أنا جا محايي من مركب أنا جا وحن ترسو جدينا هنا خلافات إن طلع أروريو إن دولة بنتلان أنا بولس منهن وحنا تكنيكال باناي أنت اللي سكوي معه قلب الله جه شيء خرط له شيء وده شقينته دولة بنتلان الدولة الدحية أنت اللي جاري لما يصير كدستورك لما يصير كدستور كنا وهم لينا أيوه next 10 years أما 5 years إلا لما يصيروا أنا personal opinion I hope I'm wrong بحاله وحيالها بدن أو كحرا باوحي كينا يعني إن وقت اللي قليه وما سنتين